kulan wacan wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran bogga aan ku leenahay Facebook-geena Jiib Cabdulqaadir Xuseen. Muuqaalkan waxaan ku falanqeyn doonaa kulamadii xalay laga ciyaaray koobka Horyaalada Qaaradda Yurub wareegiisa 16 ciyaarihii adkaa natiijooyinkii ka soo baxay iyo sidoo kale kulamada caawa laga ciyaari doono wareegga 16 ee koobka Horyaalada Qaaradda Yurub iyo sidoo kale waxyaabaha la rajayn karo. sidoo kale waxaan falanqeyn doonaa kulanka weyn ee horyaalka Soomaaliya galabta laga ciyaari doono ee u dhaxeeya kooxaha Elman iyo sidoo kale Dekedaha. haddii aan ku horumarno kulamadii xalay la ciyaaray natiijooyin kala duwan ayaa ka soo baxay kulamadii Inter Milan iyo Atletico Madrid, PSV Eindhoven iyo kooxda Borussia Dortmund. ciyaartii weyneed ee ka dhacday garoonka Inter ee ku ciyaartay Giuseppe Meazza waxaa kooxda kubadda cagta ee Nerazzurri ay ku adkaatay gool eber. goolkaasi waxa uu dhaliyay ciyaaryahan Marko Arnautovic, halka kooxda PSV Eindhoven oo garoonkeeda joogta barbara ay la dhaaf weysay kooxda Borussia Dortmund. kooxda Borussia Dortmund awoodeeda wax kasta oo ay isugu geysay sida ay ku heli lahayd 3 dhibcood ee natiijada guud ee ciyaarta. hase yeeshee kooxda kubadda cagta PSV Eindhoven oo in badan fahansanaayeen akhrin guudna ku sameeyeen xaaladda weerarka ee kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ayaa kalsooni badan ka heshay xidigaheeda difaaca, taasina waxay dhaxashay in dhibic ay ku qaadato iyadoo joogta garoonkeeda. goolka labada dhinac PSV iyo sidoo kale kooxda Borussia Dortmund waxay ka kala heleen dhinaca PSV waxay kaga mahadinaysaa goolkaasi Luuk de Jong weeryahanka reer Holland, halka kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund kubaddaasi goolka kaliya ee dhaliyeen uu u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Molan. goolka kaliya uu dhaliyay waxa uu dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Malen. dhinaca kale laba kulan ayaa caawa laga ciyaari doonaa koobka Horyaalada Qaaradda Yurub wareegiisa 16. kooxda Napoli ayaa garoonkeeda ay ku ciyaarto ee Stadio Maradona caawa waxay ku soo dhaweynaysaa dhigeeda kooxda Barcelona. kulankan oo loo arkayo mid ka mid ah kulamada mucaashaqiinta indhaha ay ku hayaan ayaa haddana kooxda Barcelona waxay rajeynaysaa in wax walba ay ka sameyso ciyaartaasi. jamaahirta kooxda Barcelona waxay kalsooni weyn isgelinayaan sidii ay ku heli lahaayeen natiijada guud ee kulankaasi, iyadoo tababaraha kooxda Barcelona uu caawa la soo shartay karo saf taam ah. ciyaartan oo geeska Afrika laga daawan doono marka ay tahay 5 saac oo habeenimo waa kulanka ka tirsan wareegga 16 ee koobka Horyaalada Qaaradda Yurub. kulanka xiga ee isla caawa laga ciyaari doono koobka Horyaalada Qaaradda Yurub wareegiisa 16 waa ciyaarta weyn ee u dhaxaysa kooxaha Porto iyo sidoo kale Arsenal. si la mid ah ciyaarta Napoli iyo Barcelona waqti la mid ah ay soo gali doontaa, waana 5 saac oo habeenimo dhammaan ciyaaraha caawa laga ciyaarayo wareegga 16 ee koobka Horyaalada Qaaradda Yurub. ogowsi ciyaarta kooxda Porto iyo sidoo kale Arsenal waa ciyaar kale oo saameynteeda wadata marka laga soo tago Napoli iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Barcelona. ugu dambeyn waxaan falanqeynteena ku soo gabagabeynaynaa kulanka weyn ee u dhaxeeya kooxaha Dekedaha iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Elman, kaasi oo galabta laga ciyaari doono horyaalka Soomaaliya. waa mid ka mid ah kulamada taageerayaasha ay ugu jecel yihiin. taageero walba wuxuu libinta u rajeynayaa in kooxdiisa dhankeeda ay marto. guud ahaan waxaan halkaas ku soo gabagabeynaynaa falanqeynta kulamadii xalay laga ciyaaray koobka Horyaalada Qaaradda Yurub, kulamada caawa laga ciyaari doono iyo sidoo kale kulanka laga ciyaari doono horyaalka Soomaaliya ee isha lagu hayo ee u dhaxeeya Dekedaha iyo sidoo kale kooxda Elman. saaxiib waad ku maasan tahay daawashada muuqaalkan.